waxaa soo dhammaaday toddobaadkii lixaad horyaalka kooxaha heerka koowaad ee xiriirka kubadda cagta Somaliland ka wada garoonka Hargeysa Stadium degmada Axmed Dhagax ee magaalada Hargeysa. Kooxda wasaaradda maaliyaddu waxa ay 4-3 uga soo badiyeen kooxda xidigaha cirka. Kooxda dowladda hoose ee Hargeysana waxay 3-0 uga soo badiyeen kooxda wasaaradda ganacsiga. Kooxda ciidanka gaashaana waxay 3-1 uga soo badiyeen kooxda wasaaradda biyaha. Kooxda wasaaradda caafimaadku waxay 4-3 uga soo badiyeen kooxda ciidanka asluubta. Kooxda ciidanka goodurna waxay 4-3 uga soo badiyeen kooxda Waxool. waxaana sidaasi toddobaadkii lixaad horyaalka kooxaha heerka koowaad hogaanka u haysa kooxda dowladda hoose Hargeysa kuna hogaaminaysa 16 dhibcood iyo 12 gool oo nadiif ah. Dhanka gooldhalinta ciyaartoyda waxaa hogaaminaya Khadiir Mustafa Maxamed oo kooxda dowladda hoose Hargeysa ka tirsan, waxaanu haystaa 8 gool. sidoo kale waxaa kaalinta labaad ku jira Amiin Xirsi oo kooxda ciidanka goodir ka tirsan, waxaanu haystaa 7 gool. haddii toddobaadkii koowaad lagu soo dhaliyay 20 gool oo toddobaadkii labaad lagu soo dhaliyay 18 gool oo toddobaadkii saddexaad lagu soo dhaliyay 19 gool, toddobaadka afraadna lagu soo dhaliyay 9 gool, toddobaadkii shanaadna lagu soo dhaliyay 20 gool, toddobaadkii lixaad ee soo dhammaadayna waxaa lagu soo dhaliyay 28 gool. wadarta guud 6dii toddobaad horyaalka heerka koowaad waxaa lagu soo dhaliyay 114 gool. haddaba toddobaadka toddobaad ayaa noqon doona mid markuu soo dhammaado la geli doono fasax bil ah, mar haddii bishii barakaysaneed ee Ramadaan inaga xigaan maalmo kooban oo keliya. maxay kula tahay in toddobaadkaasi lagu soo dhalin doono dhanka goolasha haddii alla idhaahdo? Axmed Taye Qaran, wararka Malcab, magaalada Hargeysa.